السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادا عشر كيني تضبي لباتاناد كويك بوكا. عشر كيني وحكو برندونا how to know the activity of customer. عشر كيني وحكو هالليا دغدغاقا customer كساد ولا سعول هيد برو انتو حكايب سدي انتو العكو كاني انتو قدين كاقاتي دغدغاقيس oo dhan waa la soconaysaa marka adoo barnaamijka adeegsanaya quick book sida ula socleed ba casharkan ka hadlaya kusoo dhawaada casharkan dhinaca practicalka markaan usoo leexano saa ula socotid customerka dhaqdhaqaaqiisa waxaad tegaysaa customers waxaad tegaysaa create statement baad kasii tegay then siyaasadan aad kusoo yarbaxaysaa halkan timekii baad ka bedbedelay saasu timeka aad doonaysid dhaqdhaqaaqa customerkan baad bedbedelay anigu timeka ma bedbedelayo waxaan rabaa isla bishan dhaqdhaqaaqii uu sameeyey baan rabaa marka waxaad samaynaysaa halkaa tigtaad saaraysaa show invoice and in detail halkaana waxaad ka dooranaysaa one customer marka waxaad eegi kartaa customerska oo dhan one customerna waad eegan kartaa one customerkaan ku dhifanayaa then waxaan select gareynaya customerkii kasoo qaad geedi oo kale baan select gareeyey halkaasaa taabanaysaa preview itus micnaa customerkan xogtiisa wakaa xogtiisa itusay ii weyneysiyey double click baan halkaa taabanayaa hal click keliyan igu filan marka waa kan marka saan kuugu soo baxo halkani waa lacagtii deyntii lagu lahaa iyo activity-gii uu sameeyey baa halkan nooga muuqda marka halkan bishii 8 sodokeedii ninkan invoice baan u qornay qaabsheeg invoice ANV baa loo soo gaabiyey datekiina waa ku qoran itemkiina waa biscuit quantity-giina waa 2 midkiiba waxaan siinay 12 ka halkaas ka yimi markan kalena bishaas sodokeedii baan invoice kale u qornay oo biscuda oo 2 ah oo 20 marka labada biscuit labada kartoon biscuit baa ninka lagu leeyahay total ahaan deynta lagu leeyahay invoice ka ku qoran waa 48 marka xogo fara badan ninka haduu payment si lahaa BMT baa loo soo gaabiyaa marka uu isticmaalay baalka BMT marka waa payment wal lacagtu bixiyay iyo haduu lacag sales laga iibsay halkan oo dhan bay ka soo baxaysaa marka asxaabay sidaa fudud baad ula soconaysaa customerka deynta ka qaatay iyo customerka lacagta ku siiyay marka cashkeeni intaas aan kusoo gabagabeynaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.